بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo gabar magaceed la dhaho Caasho Cabdullaahi Maxamed oo qudaarta gadi jirtay oo argagixisadana miinooyinka u gelin jirtay qudaarta haddaan ugu cusubtihiin subscribe-ka noo saara like-ta noo saara haddaa hore noo joogteena waa ku mahadsantihiin. haddaan kusii socdo Caasho Cabdullaahi Maxamed waa gabar 3 nin oo argagixiso ah usoo dhashay caruur. waa gabar xamar soo gashay kadibna ceelasha biyaha ayay qudaarta ku gadi jirtay. argagixisada waxay u keeni jireen miinooyinka ramuudooda. howlgalka ninka sameynaya u imaan jiray waa uu ka qaadi jiray meesha dadka ugu badan ay joogaan dhalinyarada. halkaasaa la geen jiray oo lagu rakibi jiray kadibna waa lagu qarxin jiray. ilaahay amarkiis nimankii ka qaadiyay mid ka mid ah oo hadda ka horna ka qaaday ayaa intuu wixii qaaday oo meesha ku rakibay yiri kusoo rakibay ee dadka joogeen ayuu ciidamadii u yimid. wuxuu yiri Al-Shabaab baan la shaqeeyaa qaraxan halkaa ku rakib baa la yiri. maxaan kugu aaminaynaa baa la yiri. maxaan kugu aaminaynaa waa lagu dhahay. wuxuu yiri meeshaan qaraxa kusoo rakibaa in tusayaa. qarax waxaan kasoo qaaday gabadhii dhiiri kasoo qaad ceelasha biyaha ayay qaraxa ku haysaa. marka warbixintii markii ciidamadii Minneapolis soo raaceen oo meeshii uu qaraxa ku rakibay la arkay waa la furfuray. gabadhiina waa la raajay. ayadii markay wax inkirtay gurigeeda qaraxii laga waayeyna gabar baa si kale uga soo saartay warkii. ugu dambeyn qaraxii qudaarteeda laga soo saaray. daawasho wacan. xogtaadna waan haynaa dadkaas la shaqeyn jirtay sidaas ay tahay qaraxaas hadda la badbaadin runtu iska sheeg wixii aad hayso sheeg. kadib ay soo waday jawaan ay qudaar ku gadayso cusub oo qaybta korantan qudaar ku jirto qaybta hoosena qudaar ku jirto oo qaraxyo fara badan oo ilaa 5 nooc kala duwan ayaa laga soo bixiyay. video laga soo duubay goobtii lagu soo qaaday. waxa baaris ayaa la marsiiyay si waafaqsan qodobka 24aad oo CID ayaa baarisay. markaas kadib ay waxay sheegtay faahfaahin guud inay 12 sano u shaqeynaysay ciidanka ururkan Al-Shabaab. inay shaqooyin badan ay soo qabatay. inay gabaadsiin ay sameyn jirtay. inay kala gudbin jirtay hubka iyo qaraxyada. waxaa kaloo sheegtay inay qaadan jirtay $120 oo loo soo diri jiray. waxay kaloo sheegtay in 3 rag ka mid ah Al-Shabaab oo waliba dadka qaarkood diyaarad lagu duqeeyay wanted ahaayeen la ogaayay dawladda dhan ogeed ay soo guursatay. waxay kaloo sheegtay caruurtii ay dhasho dhan Al-Shabaab ka soo dhashay intaas soo shaqeynaysa 12 sano oo miiskeeda hoostiisa ay ku jiraan qaraxyo. أنا عنقو هرت واسدة جرمك كوبا شباب كوبا عن كبير وجورك عن كجلي جور أنا كجلي وحنا رجلي عند الجنا جري ما قصنا جريب الجنا دول 5 سنة عند الجنا يعني 5 سنة أنا حمر عن جوي ما عروم ملاذ ها أول رحت مرك اللي سعر أبوذا وتي أبيض ما كشغل أبوذا شباب هايقول وأنا كلت ninkan kale oo ka hadlo guleeyahay wuxuu u qabtaa shabaab aswaxa aan qabtay moogi oo dhaglo laakiin soo wici jiray marka waxay tiri wax baadi magaalada ka baxsan maanta iska dhaaf ilmaha kursanaysa ilmaha kursan ragaas deero Al-Shabaab way ka leexay dhahday ana hayaa iraadi sidii uga har wiilkii magaciis ninku soo wici jiray oo alaabta kun ku soo
ninka wiilka igu soo hagay ma ninkaas xiriirka ka dhaxay magaciisa faarax ala faarax waa loogu daray ma aqaanani ya faarax waa loogu daray shay kari faarax waa aqaana bis ma aragti wiliga meeqa mar telefoon la iska naqaanay ninka adiga ilmaha afarta ka dhalay oo aabaha carruurtaada ah magaciisa saddexan maxaa la adirqibs kaliya siinaa la garawaasi marka adiga xagga isku barteen miya aan dhir meesha safar waada dharan gidayno ganacsi aan aaday ka bacdi meesha isku baranay nin adeerkay oo adi maqanaa ugu daran marka ninka adeerkay saaxiib ahaayeen adi wiilka adeer oo adaa isku guursataa oo aragtaa anna wax ma waarkaan dhaa wiilkaas adeerkay ugu daran adeerka magaciisa mahdi maxmed ala wuxuu qabtaa shabaab aan shabaab ma qabto jilib laakiin uu jooga wuxuu qabtaa ma garan karayaan nin meel isku socdo ahaaye si marna 70 soo jiray hadda markuu dambeysay 120 sii jiray wala ka ah hal mid aan naqalka midna waa diyaarada duqeyda magaciisa nuur cabdilaahi allah goorma duqas diyaarad sideed sano ka hor yool dhintay yaa isla socdeen kaligiis loo gaariyo watay kaligiis mid duqas wiil aan wada socono oo kala harnay oo adiga oo dhegla jooga ay soo xir wiilkan marka wiilkan asna wuxuu dhaabay oo dhegla aad maanta ma joogiye wiil waa ka ganacsada bakaara joogo waxa rabaa dhaana simikaar igu dhiibtid أنا على سبكار ولا واحد كان عميين كسر واحد كان عم أهم هذا واحد كدافته هذا سوى أجر الله شيء بعد فاشن واحد كجرو يقصر دي وحي بعد فاشن كجرو على كان عني ما لانجلي نين كان قرح لودي بس الشيء وعلى قرحي وحوداي مرك ويل كان على صواب على قلبتها قبر سمكار يقدوني سيدا سوق أفر ساعة سديب وحوداي قبر كان وعرضها كتايدين هايا أنا واحد سلاقي قمر قاتي شقة كملي أسأل على طلع سوق هذا مشان alaabta xeed meesha laga soo qaaday alaabta meesha qudaarta laga soo qaaday ma jirto waxa aan wada leh waa maanaan wixii oo simkaar ahaan la igu dhiibay aan u dhiibay maanaan meesheeda alaab lagu soo guriga way fagaan alaab ugu matagan meesheedan way fagaan alaab ugu matagan ani waa korgeeyay dadka iyaga wararka meelaha wada maan wax alaab loogu tagay mal marka aan waxa dheen alaabta meesha laga soo qaaday ku dheen ciidanka ku keenay kama soo qaadan waxa alaabta wiilku u dhiibay haday qarx ayaan wax kale yihiin أنا ويلكو وسهم عند وحينا معنا. سمكار أنتوا الإجيه واتقانا ما سمكار. بعفاشون كجرا هذه أفرش شن سمكار عمل وحكوس بعفاشون كجرا هاي. سمكار وحيرو قال كان كيرو ما هو. ولا هذا سمكار دو يقر قليل بدر نكان وسوا نكان عيدا كوساق بتوحي قبل دنا عيدين هاي واتنا نكر جي وكر كان عيد كمرك ويلكو عدا باويلك سمكار وديب تمركان ما وحي بعد كجرا وديب باير عيدا كجيسة يقصوا قلين. قبلها وقبل بدن qaar argixisada ayaa xaasas u haayeen ninka la yiraahdo aadan iyo nadiifo labadaas waxaa lagu haystaa gabdhaha argixisada u socda inay ku degaan kadibna ay baawur saaraan ayaa lagu haystaa marka waa mucjiso dhalinyarada qarxi ku baaba'ayso oo ka dhacaya hadday tahay hoteello iyo hadday tahay leedo waxaa la leeyahay gabadhan ayadaa loo keenaa qaraxan waxaa lagu siiyaa bishii waxaa la siiyaa 120 haddana alaabtan ninkii uu soo dhiibtay waxaa la siin lahaa 150 lacag bay sameysaa 30 jir weeyaa la yiri marka gabdhaha qudaarta gadaya ayay ka mid ahayd miskiin bay u ekeed tartiib bayna howsheeda u kala wadatay kale waxay la tahay qaraxii loo dhiibo nin kale u dhiibto qariso in ilaahay kala xisaabtami doono wixii hore ay ugu sameysay haddana ay xabsi ay geli doonto commentiga waxaad kusoo qortaan bal qofka gabadhaas hooyada ah maxay idinla tahay oo la rabay hooyo weeye inay naxariis lahaato oo haddana qaraxyada kala gudbinaysa commentiga kusoo qora barnaamijka halkaas uga baxaya daawashaduna ku mahadsantihiin
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.